Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkaad naga daawanaysaan waa Soomaali Banaadir TV. Qodobada wararka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya dowladda oo soo saartay waaran caalami ah oo lagu soo xirayo Cabdirashiid Janan. Waxaa kaloo aad ku daawan doontaan dowladda oo faahfaahisay xaaladda Soomaalida ku nool Shiinaha. Dalal ay Soomaaliya ku jirto oo gaaray heshiisyo cusub. Wasiir Fawziya oo ka hadashay baaritaanka coronavirus ee laga bilaabay garoonka Aadan Cadde. Wafdi gaaray beledweyne oo la kulmay madaxweyne Waare. Dadka kasoo degaya garoonka Aadan Cadde oo laga baarayo cudurka coronavirus. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijka inta uu socdo. Intaasina waxay ahaayeen qodobada warka ugu dur corona, iminkana kusoo dhawaada isagii oo fidsan. Dowladda oo soo saartay waaran caalami ah oo lagu soo xirayo Cabdirashiid Janan. Dowladda Soomaaliya ayaa dalbatay waaran caalami ah oo dowladda lagu soo gacan gelinayo Cabdirashiid Janan, wasiirkii amniga dowlad goboleedka Jubbaland. Qoraal ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay arrintaasi xiriir kala sameyneyso booliska caalamiga ah ee Interpol si Soomaaliya loogu maxkamadeeyo. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay si rasmi ah u dalbatay waaran caalami ah ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay dowladda. International warrant oo lagu soo gacan gelinayo eedeysane Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan, kaas oo ka soo baxday cadaaladda. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxa ay arrinkan xiriir kala sameysay hay'adda booliska caalamiga ah ee Interpol si loogu maxkamadeeyo eedeysanahan lagu soo oogay dambiyo la xiriira tacaddiyo ka dhan ah xuquuqda insaanka iyo ku tacaddiga muwaadiniinta aan waxba galabsan. Dhinaca kale, safaaradda Soomaaliya ee dalka Shiinaha ayaa waxa ay faahfaahin guud ka bixisay xaaladda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Wuhan oo ah magaalada uu ka bilowday cudurka coronavirus. Qoraal ka soo baxay safaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in ay u kurgaleen xaaladda caafimaad ee muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha, isla markaasna xaaladooda caafimaad ay wanaagsan tahay. Waxaa kaloo safaaraddu sheegtay in ay iska warqabaan Soomaalida ku nool magaalada Wuhan oo gaaraya 50 ruux iyo mas'uuliyiinta safaaradda, isla markaasna ay sii wadi doonaan ka warqabka muwaadiniintooda. Dhinaca kale, shir looga hadlayo horumarka iyo isdhexgalka dalalka Geeska Afrika ayaa dalka Jabuuti uga furmay wasiirada maaliyadda dalalkaasi, waxaana shirkaasi Soomaaliya uga qayb galaya wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele. Shirka uu shir gudoominayay wasiirka maaliyadda dalka Jabuuti Ilyas Muuse ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa sidii sare loogu qaadi lahaa horumarka isdhexgalka dalalka Geeska Afrika iyo sidii mashruuca dariiqyada loogu furo wadamada Geeska Afrika. Shirkani ayaa waxaa maalgelinaya Bangiga Adduunka, Midowga Yurub iyo Bangiyada Horumarinta Afrika, waxaana shirka lagu go'aaminayay in la dhiso waddo kasoo bilaabata magaalada Asmara soona marta Itoobiya iyo Soomaaliya si ay u gasho dalka Kenya. Ujeedada waddadani loo dhisayo ayaa mas'uuliyiinta shirka ka qaybgalaysa waxa ay ku sheegeen inay tahay sidii la isugu furi lahaa hannaan ganacsi iyo mid dhaqaale ee dalalka Afrika, isla markaasna qorshuhu yahay sidii loo heli lahaa hannaan kala faa'iidaysi oo ay yeeshaan wadamadaasi. Dhinaca kale, wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa garoonka dayuuradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho waxa ay maanta ka bilowday dadka kasoo degaya in laga baaro cudurka coronavirus ee ka dillaacay. Dhakhaatiir ka tirsan wasaaradda ayaa howsha ka wada garoonka, waxaana sidoo kale ku sugan mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka, waxaana dhakhaatiirta ay mid u baarayaan dadka kasoo degaya garoonka. Mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in tallaabadani looga gol leeyahay sidii looga hortagi lahaa halista ka imaan karta cudurka dilaaga ah. Cudurka coronavirus ayaa waxa uu markiisii hore ka dillaacay dalka Shiinaha, waxaana la sheegay inay jiraan inuu ku faafay dalal ku yaala qaaradda Afrika, waxaana bilowday dadaallo looga hortagayo cudurkaasi. Geesta kale, wasiirka amniga Jubbaland oo gaaray Balad Xaawo. Wararka laga helayo degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu gaaray wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan
ayaa Cabdirashiid Xasan Cabdi Nuur Janan oo maalmahan ku sugnaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa warbaahinta u sheegay in wasiirka si weyn loogu soo dhoweeyay degmada Balad-Xaawo, iyada oo la filayo in uu warbaahinta la hadlo kana hadlo xarigga loo geystay iyo mowqifkiisa arrimaha Jubbaland. Sidoo kale, wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in uu kulamo kala duwan ula qaadan doono maamulka degmada, odayaasha dhaqanka iyo saraakiisha ciidamada intaba. Cabdirashiid Xasan Cabdi Nuur Janan, wasiirka amniga Jubbaland, ayaa 28kii bishii Janaayo ee sanadkan 2020 waxa ay booliiska Soomaaliya sheegeen in uu uga baxsaday halkii uu ku xirnaa, waxaana intaasi kadib uu tegay Kismaayo isaga oo uga sii gudbay magaalada Nairobi. Shalay ayaa war-saxaafadeed ka soo baxay Hay'adda Xuquuqda Aadanaha ee Amnesty International waxa ay dowladda Kenya ka dalbatay in si degdeg ah ay u soo xirto Cabdirashiid Janan kuna wareejiso dowladda Soomaaliya si loo maxkamadeeyo. Dhinaca kale, Jubbaland oo sheegtay in ay dib ugu soo laabteen ciidamadii ay la wareegeen dowlad goboleedka Jubbaland ayaa shaacisay in ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta Jubbaland balse ku biiray ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo ay dib ugu soo laabteen xeryahoodii ay markii hore ka tageen ee Jubbaland. Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Jubbaland, Cabdiraxmaan Maxamed Xasan, ayaa sheegay in ciidamadan ay markii hore dowladda Soomaaliya si khasab ah uga waday xeryahoodii isla markaasna u diiwaan gelisay, hase yeeshee dadaal ay sameeyeen kadib ay dib maamulka ugu soo celiyeen. Sidoo kale, waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray in madaxda dowladda Soomaaliya ay berihii dambe ka howlanaayeen inay xiisad dagaal ka dhex abuuraan shacabka wada deegaanada gobolka Gedo. Waa sida uu hadalka u dhigay. Marka laga soo tago wararka ka soo yeeraya maamulka Jubbaland, weli saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka Gedo kama hadlin, waxaana xusid mudan in dowladda Soomaaliya ay toddobaadyadii la soo dhaafay ciidamo fara badan geysay gobolka Gedo. Dhinaca kale, wasiirkii hore Daahir Geele oo dhinacyo badan ka dhaliilay hogaaminta dowladda federaalka. Wasiirkii hore ee Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya, Daahir Maxamuud Geele, ayaa waxa uu ka hadlay siyaasadda dalka iyo hab maamulka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, isagoo dhaliilo fara badan u soo jeediyay hogaaminta madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Kheyre. Daahir ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya hab maamulkeeda siyaasadeed ay yihiin mid aan ku salaysnayn cadaalad, isla markaasina waxa uu sheegay in ay soo kordhisay muddadii ay dalka xukumaysay burbur siyaasadeed iyo nin jeclaysi oo ay u aragto muwaadiniinteeda Soomaaliyeed in qaarba uga fiican yihiin qaarka kale, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu xusay isagoo ka hadlayay doorashooyinka maamul goboleedyada dalka in dowladdu ay waxyaabo badan ka suuroobaan in ay sameyso si ay u soo baxaan musharaxiin ay wadato oo ay dooneyso in doorashada ay ku soo baxaan. Waxa uu sheegay in aysan jirin yididiilo muujinaysa in doorashooyinka soo socda oo ay mar kale dib u soo laabtaan madaxda xukuumadda, taasina uu ku tilmaamay in ay tahay mid ayaan darro ah. Sidoo kale, Daahir Maxamuud Geele, wasiirkii hore ee warfaafinta dowladda Soomaaliya, ayaa waxa uu soo hadal qaaday doorashooyinkii dalka ka dhici doona sanadka 2020-2021, waxa uuna sheegay in aysan dowladdani dhexda aysan doorashadaasi qaban karin, halka ay ku mashquulsan tahay arrimaha maamul goboleedyada dalka. Hadalkani wasiirkii hore ee Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli uu jiro khilaaf siyaasadeed daba dheeraaday kaas oo u dhexeeya madaxda maamusha maamul goboleedyada dalka ka jira iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeeni. Halkaad ka daawanayseen waa Somali Banaadir TV. Barnaamij caynkan oo kale intaynu dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas.